Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan jaalayaal meel kastoo adduunka ka joogtiin ku soo dhawaada wareysi gaar ah aan la yeelan doono gudoomiyaha degmada Wanlaweyn Mudane Maxamed Cabdilaahi Koosto. Waxaana ka wareysan doonaa xaaladda deegaanka sida waxbarashada, caafimaadka iyo markaasi wixii la xiriira. Gudoomiye marka hore ku soo dhawow TV-ga Shabeellaha Hoose TV channel. Waxaadna nooga warbixisaa xaaladda guud ee degmada. xaaladda guud ee degmada hadda way fiican tahay. wax dhib kama jiro. way soo kabanaysaa oo dadkii dirirtu dhex martay wax hadda is hor jooga ma jiro. nin walba danihiisu ku mashquulsan yahay. alxamdulilah waxaan leenahay aad iyo aad ay rajada sidii hore kaga fiican tahay. Gudoomiye sidaan ognahay degmada waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo oo markii dambe odayaasha ay u fariisteen. dagaal beeleedyadaasi xal ma loo helay mise weli wada hadal ah socdo? oo arrintaas alxamdulilah meel fiican ay maraysaa oo xal waara in laga gaaraan jecelnahay. laakiin hadda waxaa socda processkii wejigii koowaad waa soo gudubnay oo shirka dib u heshiisiinta horta marka koowaad xabad joojinta bilaawatay, mar labaad shirka ayaa noo furmay. hadda wax dhibaato ay kama jirto. waxaa loo ballansan yahay in wixii dhiman la dhammaystiro oo 12-ka bisha soonfurka. Gudoomiye maamul walba oo jira waxaa muhiim ah inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo bulshada. waxaad nooga warantaa maamulkaaga iyo xiriirka idinkala dhexeeya bulshada. bulshada annaga xiriir fiican aan la leenahay. muddada hadda annaga aan joogno wax caqabad ah ma aanan arkin. oo bulshada waa bulshadeennii. waxaan kala shaqaynaa dhanka amniga, dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ay bulshada u baahan tahay. marka hadda wax xiriir wanaagsan u baana dhex yaalmaan wax dhibaato hadda ma jiraan. Shacabka degmada Wanlaweyn waxay u badan yihiin dad oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah. waxaad nooga warantaa xaaladda ganacsiga iyo beeraha iyo xoolo dhaqatada guud ahaan. ganacsiga meel fiican oo mara dadka ganacsatada in badan ayaan la kulannay guddigoodii. marka hadda wax dhibaato nooma sheegin. inkastoo hadda labadan beri ee ganacsiga ugu xoog badan yahay dhanka dharka maadaama hadda la soo gala ciidii. tan labaad oo xoolaha waxaan dhihi karaa sanadka hore alxamdulilah aaran u ahay. laakiin sanadkan hadda miidhal waaye, dhexdhexaad waaye oo roobabkii da-ay boqolkii waxaan dhihi karaa 40-60 weli roob kuma uusan da-in Wanlaweyn. oo dhanka xoolaha dhibkaas ayaa jiro. dhanka beerahana mar haddii boqolkii 40 roob uu da-ay 60 uusan roob da-in, dhulkii roobka uusan ku da-in waa dhul beeraley ah. marka alxamdulilah nicmada waxaan rabbi ka sugayaa inuu roob na siiyo. laakiin hadda boqolkii waxaan leeyahay 40 unbaa roob da-a. hadda waxaa xiran wadadii halbowlaha u ahayd ee degmada Wanlaweyn. wadadaasi maxaa loo xiray? maxaa qorshaha aad ka leedihiin? wadada halbowlaha degmada Wanlaweyn waxaa loo xiray shaqo ayaa ka socota oo jaay hadda waan dhismo fiican jaayaa la saaray. in jaayga uu burburaa la diidaa, jaayga labaadaa la saaraa, laamigaa la saaraa. intaas unbaa u xiran maahane wax dhibaato kale hadda ma jiraan. sidaan ognahay degmada Wanlaweyn hadda waxay ku tilaabsanaysaa horumar dhinacyo badan taabanaya. sidoo kale waxaa jiro jaaliyada Soomaaliyeed oo kasoo jeeda degmada Wanlaweyn dalka dibadiisana jooga. marka jaaliyadaasi ma la xiriirtaan oo ma la tashataan wada shaqeyn nooca in ka dhaxayso jaaliyadaha oo reer Wanlaweyn ee ku nool dunida daafaheeda xiriir fiican aan la sameynay oo waana wada shaqeynaa, waana ku qasbanaa inaan wada shaqeyno. oo waxaan xataa u bandhignay waxyaabo badan oo hadda kor caqabada ay sheegay jireen in waxaysan caqabad jirin ay dalkooda wax u qabsan karaan oo wax shuruudna aysan ku jirin. xataa waa u bandhignay. waxaa ka mid ah isbitaalkii hadda ka hor oo la sheegay in caqabada lagu xiray waan u bandhignay. waxaan u sheegnay in wax caqabada aysan ka jirin, wax lacag cid ka rabta aysan jirin. annaga naftirkeena xoogeen iyo xooleen aan ku darsanayno waana ka sugeynaa insha Allah waa inaga ballan qaadeen. Gudoomiye waxaad maamuleysaan dad gaaraya 30,000 oo qoys. maxaad ka qabateen arrinta garsoorka maadaama dad badan aad maamuleysaan? arrinta garsoorka wax weyn aan ka qabanay. garsoorka waxaan gudoomiyihii maxkamadda degmada waxaan ku amarnay inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo weli xataa isbuucii intaan jimcada ka ahayn inta kale inuu shaqeeyaan ku amarnay. garsoorka si fiican u shaqeynaa. dadka deegaanka waxay marka hore ay aadi jireen meelo kala duwan ee ka baxsan gacanta dowladda. waxaan ku amarnay inay stationka dowladda iyo maxkamadda dowladda ay tagaan. gudoomiye maxaa qorshaha u diyaarsan maamulkaaga ee la xiriira arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo sportiska? annaga oo qofka horta wuxuu yahay ayuu wax ka sheegaa. aniga waxaan wax ku bartay magaalada Muqdisho. in waxbarashada waxay gashaan aqaanaa. marka dadka reer Wanlaweyn mar walba waxaan ku booriyaa oo inay wax bartaan. sababtoo ah dadka tirada hadda ardayda Wanlaweyn markii aan imid waxaan ku qiyaasay ilaa 1800 ilaa 1700 arday kaliya. degmada Wanlaweyn waa degmo baaxad weyn leh.
marka waxaas wax soconaya ma ahan insha allahu iskoolo kalean dib u fureynaa waxaan jeclahay oo haddaan 3 bilood ama 4 bilood aan sii joogo in tirada ardayda ay sii noqon doonto insha allahu 5,000 ilaa 6,000. gudoomiye waxaa jiro arrimo badan laisla dhex maraya degmada ee ku saabsan caabuqa coronavirus maxaa qorshaha idinka diyaarsan bulshadasi ma wacyigelisiin agabkii baaritaanka ma haysataan haddaanad haysanina dowladda ma ka codsateen arrinkaas annaga waan codsanay oo waxaan raboodyo siinay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed taqriirka shalay ugu dambeysay waxaan la kulanay ururka dhalinyarada degmada Wallaweyn oo horey isugu xilqaamay in ay wacyigelin ay sameeyaan marka arrinkaas waa ku mashquulsanahay insha Allah waana ka miri dhalineynaa waxaan hadda ka sugeynaa rajo fiican in wasaaradda caafimaadka ay jawaab la siiso koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka federaalka ama hay'adaha ku shaqada leh marka insha Allah maalmaha soo socda waxaan leenahay rajo fiican in taqaatiir ay soo gaarto qalab caafimaad la keeno shaqada ay bilaabato ma jirtaa wada shaqayn ama xiriir idinka dhexeeya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka haddii aysan jirin ama isleedahay waa loo baahan yahay oo anaga ka gobolka Shabeellaha Hoose ahaan aniga muddo hadda ku dhawaad 40 maalmood ay xilka sii hayaa oo gudoomiyaalka xiriir waa naga dhexeeya wada shaqayn naga dhexeyso ma kala maarano oo waxa ugu weyn gudoomiyaheenni gobolka Ibrahim Aadan Najax oo ma sha Allah aan leeyahay waa nin dhalinyaro ah waa nin shaqada aad ugu firfircoon oo had iyo jeer anagana rabood ka siino asigana taladana siiyo marka ka gobol ahaan ama ka koonfur galbeed ahaan waa isku xiranahay mar haddii dawli la dhaho dawli waxa ugu weyn horta inay isku xirnaato gudoomiye adiga maamulkaaga iyo shacabkaba maxaa rajo idin muuqdo oo waxaan rajo anaga noo muuqdo anaga ama ka maamul ahaanteena ama shacabkeena rajo fiican noo muuqato insha Allah bishii 6 dhaxdeedii in Wallaweyn wada hadaladii lagu guuleysto la walaaloowo qabiil meel la iska dhigo loo gudbo Soomaalinimo iyo maxaan qabsanaa ugu dambeyntii gudoomiye qurbo joogta ka soo jeeda degmada Wallaweyn maxaad ugu baahan tihiin sidaas iskula shaqayn kartiin ma isleedahay waa loo baahan yahay ilo isku xiri kara maamulka iyo qurbo joogta shacabka ku nool degmada Wallaweyn maxaad ugu baaqi lahayd qurbo joogta gobolka ama kuwa degmada oo annaga hadda waa isku xiranahay rajo fiican waan ka qabnaa ayagana rajo ay naga qabaan insha Allah mana kala go'ayna waa isku xirnaanayna sababtoo ah oo danaheena isku xiran qurbo joogta waxay danayaan horumarka deegaanka annagana waxaan danaynaa horumarka deegaanka marka insha Allah waa isku xirnaanayna wax waliba aan u baahanahay waa ka wada tashanayna anigana ma naqan doona ama aniga iyo maamulkaygaba mid asiga talada gaar ay u tahay talada wadaag ayaan sameyn doonaa oo cid kasta ka danqata dadka iyo dalka ayaan talada la wadaagi doonaa shacabka degmada Wallaweyn waxaan ugu baaqaa oo inay nabadgelyada ka shaqeeyaan horumarka ay ka shaqeeyaan oo nin kasta oo nool waxaan leeyahay waa dhimana nin kasta oo nool wuxuu asiga tacbado umbu qabriga la tagaa maalinta aad dhimatidne waxaa lagu weydiinaa kaliya waxaad soo tacbato wax qabiilkaada iyo adiga idin dhexmar ma lagu weydiinayo marka inay nabadda ka shaqeeyaan aysan taladooda raacin shakhsiyaadka gaarka ah ee dan mooday in dadka Soomaaliyeed dhexdooda laga shaqeeyo dhibaato la abuuro ama kursi ama masab ku raadinayeen inay iska dhaafaan ay dantoodii ay fiirsadaan nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan oo cid kastana ay ku xisaabtanto maanta inuu nool yahay bari uu dhimanayo wabillaah adiga ayaa